السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. markay reer Caad ku halaagsameen Axqaaf, reer Thamuud ku halaagsameen Xijir, jasiiradda Carabta, waxaa jirtay boqortooyo ku nooleed dhulka Baabil oo xaqa ka leexatay. Ilaahayna muusan halaagaynin qoom ilaa uu u diray rasuul iyaga ka tirsan. waxaa ku dhashay kuna barbaaray dhulka Baabil wiil dhalinyaro ah oo magaciisa la dhaho Ibraahim bin Aazar. Ilaahay ayaa siiyay cilmi iyo xikmad isagoo da'yar. Ibraahim wuxuu weydiiyey qoomkiisa, waa maxay sabiiradan sanamada aad dul fadhisaan aad caabudaysaan had iyo jeer? Waxay ku dhaheen, waxaan ka helnay aabayaasheena oo caabudaya. Wuxuu ku yidhi, idinka iyo aabayaashiinaba waxaad ku sugan tihiin baadica. Waxay ku dhaheen, miyaad nala timid xaq mise waad iska ciyaaraysaa? Wuxuu ku yidhi, arrinka sidaa ma ahan, rabbigiina waa rabbiga cirka iyo dhulka abuuray, aniguna waxaan idinkaga ahay arrinkiinaas marqaad. Wuxuu doonay Nabi Ibraahim inuu qoomkiisa ku qanciyo caqli, uuna adeegsado xiilad kaga shaqaysiinaya caqligooda xilli ay ku jireen ciid sanadeed ay is urursadaan. Waxay u soo bandhigeen Ibraahim inuu kala qayb qaato ciidooda. Marka ayuu eegay xidigaha, ilaan iyaga ayaa ku caanbaxay saadaalinta xidigaha. Kadib markuu fiiriyey xidigaha si xiiladaysan, ayuu ku yidhi, waa xanuunsanahay, idin mana raaci karo beri. Si qarsoodi ah ayuuna ku yidhi, waxaan waxyaaleynayaa sanamadiina markaad baxdaan. Marka la gaaray beri ayay u keeneen cunto sanamadooda sida caadada ahayd, wayna iska baxeen. Nabi Ibraahim ayaa u yimid sanamadooda. Markuu arkay cunto ag taalo sanamada ayuu ku yidhi, maxaad wax u cuni la'dihiin, na hadli la'dihiin? marka ayuu saf ka maray wuuna jajabiyey sanamadii. Wuxuu ka tagay qura sanamka weynaa si uu kaga dhigo caddayn. markay ka soo laabteen ciidooda ayay arkeen sanamadoodii oo jajabsan. waxayna dhaheen, yaa ku sameeyey sidaan ilaahyahanada? marka ayaa dhaheen qaar maqlaya inuu Nabi Ibraahim sheegayo magacyadooda, waxaan maqalnay wiil yar oo xusayo ilaahyahanada oo lagu magacaabo Ibraahim. warkii ayaa gaaray boqortooyada iyo maamulka, waxayna u soo direen ciidan si loo soo xiro Nabi Ibraahim. waxayna dhaheen, keena dadka hortooda si loogu maxkamadeeyo. waxaan soo sheegnay qoomka Thamuud inay ku jireen 9 nin oo Mooryaan ah oo ku takhasusay shirqoolka, kuwaas oo isku dayay dilka Nabi Saalix si qarsoodi ah. ilaan waxay ka cabsanayeen sumcaddooda dilka haldoorka bulshada. boqorka Namruud ee maamulaya dhulka Baabil uu faray in lagu maxkamadeeyo Ibraahim dadka hortooda. ilaan Ibraahim wuxuu ahaa xilligaas wiil dhalinyaro ah oo ku dhex nool boqortooyo shacabkeedu ay jecel yihiin sanamada. boqortooyada ayaa doonaysay inay ku qanciso dadka inuu Ibraahim yahay qof lunsan, dilkiisana xalaal yahay, sida haddaba dhacdo. ciidanka Namruud ayaa soo xiray Nabiilaahi Ibraahim siduu faray baa Namruud, waxayna keeneen goob isugu yimaadeen bulshada noocyadeeda kala duwan. waxaa bilaabatay baaritaanka tuhmadii ay keeneen sirdoonka Namruud ee ka dhan ahaa Nabiilaahi Ibraahim. waxayna weydiiyeen Nabi Ibraahim, ma adiga ayaa sidan ku sameeyey ilaahyahanada Ibraahimow? Nabi Ibraahim ayaa ku jawaabay, kooda weyn ayaa sameeyey ee weydiiya hadday hadlayaan. in yar ayay caqligooda ku laabteen, waxayna dhaheen, idinka ayaa gardaran show. kadib way soo laba kacleeyeen, waxayna dhaheen, waad og tahay Ibraahimow inaysan hadlaynin. Nabi Ibraahim ayaa ku yidhi, miyaad caabudaysaan waxaan wax idin tareen waxaan idin yeeleen? uf ayaa la idin yidhi, idinkii waxaad caabudaysaan miyadan caqli yeelanayn? waxaad ku dhegaysaan cibaadada sanamyo kalgacayl idin dhex yaala darteed, iyo inaad waarisaan jacaylkiina inta adduunyada la joogo, balse maalinta qiyaamo waad isnacaysaan, waan isku abaaldarnaanaysaan, hoogiinana wuxuu noqonayaa naar, mana jiraysa cid u gargaarto daalimiinta. Nabi Ibraahim muusan qarin caqiidadiisa suuban, isagoo ag jooga dowlad, ciidan iyo shacab istaageersan. sidaas ayaa shacabkii waxay ku qanceen Nabi Ibraahim inuusan iyaga ka mid ahayn, waxayna u codeeyeen in la gubo Nabi Ibraahim. Namruud waxay la noqotay inuu ku guulaystay xumeynta sumcadda Nabi Ibraahim iyo inuu ka dhigo duka cambaar leh. deedna wuxuu faray in la dhiso dhismo weyn laguna dhaxuriyo xaabo iyo dhuxul. kadibna wuxuu faray in lagu tuuro dabka solcayo Nabi Ibraahim. balse Ilaahay ayaa u gargaaray Nabi Ibraahim. Ilaahay wuxuu la jiraa mar walba adoomadiisa suuban ee daacadda ah. dabkii ayaa Ilaahay ku yidhi, daba waxaad u ahaataa Ibraahim qaboob iyo nabadgelyo. sidaas ayaa waxaa ku khasaartay dadaalkii Namruud iyo dhisidii dhismaha weyn iyo dad ururinta. mar walbana kuwa xaqa u hiiliya ayaa yar, balse iyaga ayaa guulaystaan. sallallahu wasallam calaa nabiyina Muhammad. wassalaamu calaykum.